الرحمن الرحيم. marka hore waxaan salaan u soo jeedinayaa madashan quruxda badan leh ee maanta lagu casuumay ee looga yeedhay xusbiga kulmiye gudoomiyihiisii Muuse Biixi Cabdi oo isla markaasna musharaxa koobaad ee madaxtinimada soo socota. aad baan idin salaamayaa. waxaan kaloo salaamayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay iyo ciddii soo qaban qaabisay ee xafladdan inoo suuro gelisay. runtii waxay mudan yihiin in la ammaano oo lagu ammaano ayay mudan yihiin. mudana guddoomiye, waxaan doonayaa inaan kuu sheego shirkani inuu qabsoomo waddo dheer baa loo soo maray, mixnado badan baa laga soo gudbay, turrooyin badan baa loo sameeyey. laakiin maanta waxaa nasiib wanaaga inaad aduguna halkan kala soo qayb gasho oo ay noo suuro gasho inaynu isu nimaadno. taas waa mid. ta kale aan doonaya inaan sheega waxa weeye guddoomiye, maanta waxaa la soo kacay qaarkii hore. libaaxii baa soo toosay saaka, aarkii baa soo toosay. adiguna baryahan waad sugaysayoo inta kale waad yara qawadayso waxaad lahayd waar hadduu aarku maqan yahay waxba kama suuragelayaan. horta maantuu soo toosaye horta ku biyacab, waa inaad ku biyacabtaa. waa cabdigii bariga, abtirsiimo maaha. waa cabdigii bariga iyo bahihiisa. cabdigii galbeedkuna wuu hadho inuu ismuujiyaan baa laga doonayaa. la ishuwanaan maayo. caaqil axmed cabdi xuseen wuxuu sheegay inaan la ishuwanaan doonin. haddaynu doonayno in badan baynu marti ahayn, in badan baynu 15 sannadood baynu go'doon siyaasadeed ku jirray.